قاري الشيخ عبد الرشيد الشيخ علي سوفي iyo wafdi culimaa oo maalmihii u dambeeyay socdaal la ku marayay qaar ka mid ah gobolada uu ka kooban yahay dawlad deegaanka Soomaalidu ayaa soo gaaray degmada Fiiqe xarunta gobolka Eerara halkaas oo ay si meeqaam sare ugu soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee waxgaradka magaalada Fiiqe ardayda dugsiyada Quraanka Kariimka culimaa diinka iyo shakhsiyaadka magaca ku dhaxlay bulshada dhexdeeda soo dhaweynta Sheekh Cabdi Rashiid Sheekh Ali Suufi ee shacabka magaalada Fiiqe oo ahayd mid ay ka muuqatay dareen farxadeed oo aan la qiyaasi karin ayaa waxa SRTV uga warbixiyay sida ay ugu faraxsan yihiin booqashadan Sheekh Mustafa Macalin Rashiid gudoomiyaha golaha sare arrimaha islaamka ee gobolka Eerara oo sheegay inay farxad weyn u tahay booqashadan uu Sheekh Cabdi Rashiid Sheekh Ali Suufi ku yimid gobolka Eerara munaasabadan maanta aan taaganahay maaragtay farxad badan ilaahay baan nagu siman ilaahay baan ugu xamdinaynaa ومناسبات قالي أو آدي آد قالي نوجوا آدي آدنا عن مارك تدت كل مان مركان كهاللف قبل كفيقات قبل كإرات دقمة فيقات بالشوين تفيقات رمان فرحد يرين ما أنت سببته الشيخ النجي الشيخ عبد الرشيد الشيخ علي سوفي قاري عالمي جاها ayaa maanta nala jooga oo maaragtay wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta fiiq soo gaaray sida darteed maanta waxay noo tahay maalin cusub oo maaragtay beej cusub aan ku qoran doono hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa wax wanaagsan inaan ka heli doono xagga Ilaahay farxadda aan ku farxayno iyo soo dhaweynta aan soo dhaweynayno sheekha qaariga Sheekh Cabdi Rashiid الشيخ النجي دلش علي سوفي مفتقي سوماليات لمان سومالي ودن مفتقي وها هيستوريغونا وكهلا إن بدن مارت الله شيخو بريغان أفريقيا أما مارت جيس كان مارت سوماليدو أي دكتور أنا عام كه لقى يقانو مارت ميل والبنا هذا ما أنت إسقى ضد أو دكسيسي تحفيظ كقرآن كها مارت muxuu ahaa todobada qiro lagu maaragtay dhigi jiray maanta maaragtay muxuu ahaa fiiq iyo meelo badan uu ka furan yahay qaari Sheekh Cabdi Rashiid Sheekh Ali Suufi oo ahaa caalim si weyn looga yaqaan daafaha caalamka oo dhan ayaa xilli xaadirkan ku sugan magaalada Fiiqe xarunta gobolka Eerara waxaana la filayaa inuu kulamo diineed la qaadan doono qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada Fiiqe Cabdi Kaafi Axmed Wali SRTV magaalada Fiiqe